haddii aynu ogolaanno nabadgelyada inaynu had iyo jeer innagu aynu midigta ku qaban weyno waxaa laynoo bahdilayaa sida ummadaha Soomaaliyeed ee kale ay u bahdilan yihiin maanta walaalaheena Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxa ay garab jooga maayarka caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga Cabdifataax Ibraahim. maayar soo dhow. waan dhawahay walaal mahad aad iyo aad baad mahadsantihiin. maayar maanta olole weyn oo deegaanka ka socda waxaa jira dhig shubisa ololahaas kan laga hor iyo si guud deegaanka Soomaalida si guud xaaladda deegaanka ka taagan runtii waa la wada ogyahay. waa arrin cid kasta oo ku soo duusha deegaankeena in si wada jir ah looga hortago qorshe inoo yaalay buu ahaa kii un baana kolley socda. marka kulankan waa kulan aanu dhalinyarada qaybaheeda kala duwan xagga da'da marka laga hadlay aan kula kulmayno weeyaan oo aan nabadgelyada kala hadlayna siday u sii xoojin lahaayeen waxay ku tabaruci karaan ciidankooda halgamayaasha. kolley waa intaas inta ugu muhiimsan kulankeena maanta uu yahay. marka hadda waxyaabaha socda ee tabarucaadda maxaa ka mid ah? tabarucaadda waxyaalaha ugu muhiimsan ee ka mid waa dhiigga. askariga dhiigga inoo shubaya inaan dhiiggeena u shubno waa qodobka kaliya ee loogu mahad celin karo looguna abaalgudi karo. waa shayga koobaad ee aan isleenahay abaalgudka koobaad buu noqon karaa in dhiigga askariga inoo shubaya inaan inaguna dhiiggeena aan u shubno. marka dhalinyarada caasimadda qaybaheeda kala duwan waxay saaka ay isugu yimaadeen waa dhiig shubis ay runtii dhiigga u shubayaan iyaga oo halkan jooga goobta madartay howlka sayidka. maayar si guud xadadka ka mid ah ayaa al-shabaab soo gashay ilaa hadda meel wax marayaan shacabka xoogaa way runtii xuduudada iyo waxyaalaha si guud deegaankan ku saabsan hogaaminta deegaankan u daynaya. laakiin marka la yiraahdo kulankeenan iyo caasimada arrimaha ay saaka u soo guntatay arrimahaasi laakiin xagga nabadgelyada iyo xuduudaha si guud waxaan u daynaynaa laamaha amniga oo madartay xogaha ugu muhiimsan ee laga warbixin kara haya. marka taasi waan ka cudur daaran lahaa si guud. magaalada maxaa ku soo kordhisay maalmihii u dambeeyay? magaalada waxaan ku soo kordhinay in madartay ay bulshadu iyada marka horeba ilaashanaysay nabadgelyada in nabadgelyada ay ilaashato kaliya oo la isku wacyigeliyo kaliya weey waxa ku soo kordhay. bulshaduna bulsho markii horeba waxay ahayd kulligeed booda askari ah bay ahayd wada madartay ay iyaguba wada madartay ay nabadgelyada ilaalinaya wada nabadoonna ah ilaashanaya deegaankooda iyo horta bulshadu ahayd. bulshada in la wacyigeliyo kaliya oo la baraarujiyo oo xaaladdu halkay marayso lala socodsiyo kaliya u baahan tahay. marka wax cusub oo lagu soo kordhiyay ma jirto siday bulshadeenu heeganka markii horeba ay ugu jirtay in la yiraahdo hal baraarugo kaliya ayaa ku soo kordhay. waa tahay maayar bulshada fariinta daawanaysa maxaa farasa bulshada waxaan leeyahay kolley arkaysaa maqlaysaa bay oran jireen culimadu waxa ka taagan geeska Afrika bulshada way arkaysaa waxa ummadda Soomaaliyeed ee kala ku dhacaysana way arkaysaa. waxaa laynoo bahdilay haddii aynu ogolaanno nabadgelyadeena inaynu had iyo jeer innagu aynu midigta ku qaban weyno waxaa laynoo bahdilayaa sida ummadaha Soomaaliyeed ee kale ay u bahdilan yihiin maanta walaalaheena Soomaaliyeed dalka Soomaaliya siday madartay cadawgaasi ay u bahdileen baan u bahdilmaynaa. marka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan leeyahay sida markii horeba dhalinyaradu ay ahayd dhalinyaro wada ciidan ah wada madartay halgamaa ah ka hortagaya dhibaato cid kasta oo wada in ay dhalinyaradu ku baraarugsanaato waqtigeediina la taagan yahay dhalinyaraduna ay garab taagnaato cid kasta oo madartay ay nabadgelyada deegaanka ilaalinaysa ka soo bilow madaxweynaha deegaanka ku jooji ilaa iyo askarta madartay inoo halgamaysay dhiigooda inoo shubay. ilaa hadda abaabulka dhalinyaradu mid sida u muuqda runtii dhalinyaradu marka hore saan idiin sheegayba dhalinyaradeennu waa dhalinyaro nabadgelyada ku barbaaray weeyaan oo ilaalinta nabadgelyada ku barbaaray iyadoo ay sidaa tahay qof kastana haddana gurigiisa ayaan madartay aan rajo ka qabnaa in uu halka uu joogay ee gurigiisa dhexdiisa inuu nabadgelyada ku ilaalinayo inuu gurigiisa hortiisa ilaalinayo inuu xaafadda uu degan yahay ilaalinayo inuu magaaladiisa ilaalinayo si guud maskaxda qof kasta oo ku nool magaaladeena waxa ku seefgaraysan arrinta noocaas ku seefgaraysan. waa tahay maayar aad baa mahadsantahay.